adaa markaa mas'uul ka ah hab dhaqankaaga si aad u fikirayso si aad wax uga falcelinayso waxa soo dhan adaa ka boos laakiin maxaa saameeyay hab dhaqanka iyo hab fikirka qofka saddex shay baa saameeyay qolooyinka Ingiriisku waxay dhahaan 3 E's saddexdaas shay waxa weeyaan deegaanku qofku ku nool yahay waxbarashada iyo nidaamka waxbarasho qofku helay iyo waxa la yiraahdaa khibradii waa aragnimada nololeed ee uu qofku leeyahay saddexdaas shay baa saameeya hab dhaqanka qofka sidoo qofku u dhaqmayo sidoo wax uga jawaab celinayo iyo sidoo u fikirayo iyo sidoo u arkayo qadiyadaha iyo dareenada kala duwan iyo ashyaada kala duwan ee intuu nool yahay qofku uu arkayo waxaan ku bilaabaynaa ta koobaad oo ah deegaanku sidoo saameyn ugu leeyahay hab dhaqankayga hab fikirkayga iyo sida aan anigu wax u arkayo iyo sida aan uga jawaab celinayo wax deegaanku waa marka la isku wada geeyo de waa uu badanaya oo tirabeel buu noqonaya oo waxa kamid ah deegaanka waxa kamid ah gurigi oo meesha waqtiga ugu badan ee noloshaada aad ku qaadato waxa kamid ah iskuulkii oo isaguna de aad akhyaartii kula da'da ahayd ama culayskii ama isa saameyntii isku da'du ay ka imanayso oo the peer pressure baa la dhahaa oo qofka kale ee iskuulka kula fadhiyay boqolka qof ee iskuulka aad wada dhigatiin haday yihiin dad wada xagga xun wax ka sheego xagga xun wax ka eega way yar tahay sida iyo kartida iyo probability-ga aad ku noqonayso qof si fiican u fikira si fiican wax u arka nolosha dhinaca fiican ka eega waad kaanaysaa waxa jira isa saameyntii faca oo faca ba ku saameynaya adna waad saameynaysaa waxa kale oo soo hoos galay media saxaafadii telefishinadii wargeysyadii filmadii waxyaabihii de ayaa soo dhaxgalay iyaguna media laga la socday waxa soo hoos galay political environment nidaamkii siyaasadeed iyo deegaankii siyaasadeed qofku ku dhex noolaa waxa soo hoos galay qofku nidaamkii bulshadu ku noolaa system of life ama lifestyle nolosha qaab nololeelka ay ku nooshahay bulshadaadu baa soo hoos galay waxa soo hoos galay i'tiqaadkii aaminsanaantii qofka iyo dhaqankii baa soo hoos galay waxa soo deegaani wuxuu qaabeynaya sidaad wax uga jawaab celin doonto iyo sidaad wax uga jawaab sidaad wax u arki doonto iyo sidaad adu u dhaqmi doonto sidaad qaab nololeedka noloshaadu ay u taagan ay ka qayb qaadanayaan haddaba deegaanku sidoo u saameeyaa hab dhaqankaaga intaynaan jawaabta gelin waxaanu ka horreysiinaynaa qofka oo yeesha hab dhaqan wanaagsan iyo qofka oo yeesha hab dhaqan iyo khuluq iyo edeb xun ama sifo u dhaqmay sifo wax u arko oo liidata labadoodu maxay natiijadoodu kala noqonaysaa natiijada koobaad ee qofka hadduu positive attitude ama hab dhaqan iyo aragti wanaagsan yeesho ama falcelin iyo ka jawaabid iyo qaabilid wanaagsan leeyahay wuxuu helayaa qofku ta koobaad noloshiisa uu ku raaxaysan doonaa talabaad wuxuu helayaa korin shakhsiyadiisu way kori doontaa awood bay yeelan doontaa wuxuu ka kori doonaa saameynta ay dadka kale keenayaan dhaliilaha dadka kale u soo jeedinayaan niyad jabin maayaan waayo wuxuu leeyahay qofkani awood shakhsiya had iyo jeer wax kasta oo dhaca way ka farxin doonaan isagoon qof kale u iman ama isagoon shay u iman ayuu iska farxi doonaa qofku ka raadin maayo farxadda iyo deganaanshaha qalbiga iyo qaninimada iyo hodannimada shakhsiyad ka raadin maayo ashyaa iyo shayo sidii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabigu alqina qina nafs qaninimada iyo hodannimadu waxa weeyaan waa ta qalbiga waa ta nafta waa ta qofku gudaha ka dareemayo taasuu qofku heli doonaa noloshiisa uu ku raaxaysan doonaa asxaab wanaagsan buu heli doonaa oo inagii maalintii hore sii sheegnay we attract what we radiate waxaynu inagu soo shiidanaa oo deegaankeenna mar walba ku xeeran oo nolosheenna mar walba buuxiyo ag taagan oo ama saaxiib ama qoys ama dad qaraaba ama xidhiidh aynu la yeelanaynaa oo markasta deegaankeenna ku badanaya dad inana dareena oo waxa inaga baxa dareenkaynu sii dayno rabitaankeenna kula mida soo daynaya waa qaacido nafsiya oo qofku siduu dareemayo qof la dareen unbuu la saaxiibi haddaad nin wanaagsan tahay nin muqayilo canka kuusa maalin walbo cankani weynaaday uu jilcay de la saaxiibi maysid haddaad gabadh suubanoo saxan tahay oo kuwii cabdiqani mandela ka sheekeynayay xijaab xidhatiyo quraan xafidiyo xadiis barataay xijaab xidhatiyo xulkii dumar ay kuwii nabigu yidhi cabdiqani mandela haddaad tahayna la saaxiibi maysid tu badeecadda qurquriso burbur kaga siisa waa isku dareenba matiin qofba dareenkuu sii daynaya dareen la miduu la saaxiibaya waxay hoos galaysaa qaacidada psychology-gii aayaddii qur'aanka ahayd wadayibuuna lidayibaati